سلام ولا الله دمان وادن سلانay waxaan ku salaanay magaca sayidkeena iyo badbaadiyahana Ciise Masiix soo dhawaada ku soo dhawaada jidka jannada waa aniga Aashina Gaabo iyo xaaskeyga Shani Gaabo soo dhawaada walaalayaal dhamaan waan salaameena mar kaleeto waxaan idin soo diyaarin maantana 10 kaleeto oo la dhaho magaciisa maxaan sameeynaa markaan aqoonin waxaan sameyn lahayn magaceedu waa saas waxaad sameyn lahayd markaan aqoonin waxaad sameeysid marka intaan bilaabin 10 ka hor waxaan ku fureynaa duco ربيو إلهه وحنكون معنا مجا سيد عيسى مسيح ربيو وحنكون برينا إن أت قلبينا أت مارت هجاج سيد أو أنا قدام حنشيجنا وحادي قرالك تها إنه قدام ربيو نيدني أفكارني وحلب أنشيجن ربيو أديك قاعد أديك هجامي وحلب ولا الله سيدك مقلين ربيو وحنكون برينا قلبي جود كشبت وأديك أفهم سيد أو تلاقش ربيو أنت سبحانك ويدي سنة مجا سيد عيسى مسيح آمين 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 يس شنو 10 وناكسن يعني وموضوع وناكسن محان سمعين إيسا مركزاً أقول واحد سميسد وموضوع وناكسن أو في عن وباهن مارته إن سفي عن لو برانديجو ومركز تلاد كارد انتصام مركز تلاد إكاوررسن تاعي كاوررسن تاعي محسمين لهاد ويجتا مركز قاركود مارته إن مسكعة بلانكا إنه قتموت ayaan wadnina wuxuu akhriyay aayado ayuu akhriyay markuu dhameeyo weydiiyay wuxuu yiri shino maxaa ka dheelaadna markaas aan xogaa aamusay markaas wuxuu yiri mise maskaxda Ibrahim soo waxa sheegtid inta qaan mise waxa sameeyay inta qaan marka qaarkood way dhacdaa qofka inuu is yiraahdo markaan go'aan gaari kartid male markaan maarta waxa ku fikirtid maarta fikirkaaga muxuu noqon doonaa markaan tala u baahan tahay waxaan ka hadlaynaa waxay tahay marka maxaa sameynaysaa markaad aqoon waxa sameeysid aniga waxaan ahay bini aadan Shaniya صح bini aadan hadii aan nahayna waxa waaye waana la sameeyay waxna abuur ilaah baan abuuray ilaah isaga yaqaan wax walba oo noo wanaagsan wax walba oo noo fiican asaa yaqaan laakiin anaga bini aadan maadaama aan nahay waxaan la siiyay aqliga la siiyay garasho iyo garaadana la siiyay oo aan ku fikirno oo ma artay aan wax walba ku sameeyno marka ugu horeysa ilaah wuxuu yiri aqliga idin siiyay iyo garasho idin siiyay waa aan aniga u gartaan maadaama asoo ku sameeyay kan ku sameeyay ina aqliga ku garatid oo aqliga wuxuu ku sameeyay waxay tahay ina adiga asoo ku garatid marka asaga aad garatidna ahaatid ku asoo ku xiran saasa ugu xirnaatid markaas ka bacdi waxa helaysaa wadooyinkiisii ay helaysaa si asoo ku hogaamin lahaa wax qabadkiisii ayaa helaysaa kaalmadiisii ayaa helaysaa la hadalkiisii ayaa helaysaa ku maqlaaya asagina marka ilaah aqliga ugu horeeyay wuxuu noo siiyay inaan ku fikirno laakiin wuxuu ugu horeynta ay tahay asaga inaan ku garanno marka ilaah asaga aan garano waxaan noqonaynaa kuwa asoo ku xiran marka qaarkood anagoo aqli leh oo garaad fiican leh oo cilmi leh waxa dhici karta in qof uu ka soo baxay jaamacadaha ugu sarsareeya marka qaarkood uu garan karin waxa uu sameeyo way dhacdaa marka qaarkood kana yiraahdaan oo warna ma aqaan waxa sameeyo marka arrimaha noocaas horta marka imaadaan way arrimaha ka hadleeno arrinta ka jaawarta qofka taasaan ka hadleena anagoo ku dabaqeena kitaabka quduuska waxyaabaha uu ka leeyahay markaadan garanaynin ama aad aqoonin waxa sameyn lahayd waa markaas markaan hadleeno oo arrintan aan ku soo ay ku soo biishobanayso maartay aan gunaanadna ugu dhigayno in ilaah uu yahay asaaska in ilaah uu yahay maartay meesha loo noqonayo in ilaah uu yahay meeshan wax walba ka helayna sida awadeed ayaan rabnaa kitaabka quduuska ayadan ka soo qaadanay inaan isla wada aqrino isla wada fiirino Shanina ay maartay ayadaha ugu hore ay noo bilowdo صح kitaabka quduuska waxa ku qoran Yohanaha 14:26 waxa ku qoran laakiin gargaaraha ruuxa quduuska ah oo aabuhu ku soo diri doono magacayga wax kasta ayuu idin bari doonaa wuxuuna idin xusuusin doonaa wax kasta oo aan idin ku iri waxa way anaga macalinkeena waxa way ilaahay sidoo sheena bashaagay macalinka ugu ka wanaagsan ma jiro kana abuurtay wax walba maskaxdeena iyo qalbigeena wadnaheena wax ku jiro og yahay dhiigeena xididadeena wax dhexmaro og yahay marka sheekada markay naga jaha wareerto oo maar taladii ay iga wareertay adhihi sidoo kale talada ugu wanaagsan waxa loo weydiistaa waa ilaahay isaga loo noqdaa isaga la weydiistaa anaga masiixa wuxuu nagu yiri waxa la idin siinaa wax la dhaho ruuxul quduus qofka masiixa kaliya ayaa qabo qof kale oo masiix ahayn ma haysto taasi waa gargaare uu ilaahay noo soo diray wuxuu yiri wax walba ayuu idin barayaa waxa aan idin barayna uu idin xusuusin doonaa Ciise Masiix xitaa markaas iyada wuxuu la hadlaa xirtiisa markaas taagnayd uu la hadlaa wuxuu horan waalid xasuusina wax kastana waalid bari doona waa xikmadda ilaahayga macalinka noo ah oo wax walbana bara hadda markaan dhalano kale adoo hadli karina imaanaysa adduunka yaa wax ku baraya ku hadashid hadalka ku hadli lahayd wuxuu dhan afkaaga waxa ka soo bixinaya maxay tii ilaahay ayaa ka soo bixinaya oo ku baraya waalidkaana waa ka baranaysaa si iyagu hadlaana u hadlaysaa laakiin awoodda ay ku imaanayso iyo hadalka ka soo baxay wuxuu ka imaanaya ilaahu ka imaanaya markii ilaahaygaas wax walba nasiiyo oo cilmi kasta nasiiyo wax walba nasiiyo
wax hadaa cilmigeena ama aan wax ku garan weyna ama caqliguna siiyay anfic waa maalintaas wax ka jahwareerto wax kasta ilaahay wuxuu rabaa in asaga aan kala tashano talada ugu weyn isagaan weydiisana hadda dadka Soomaalida oo kale qofka weyn waa yeelka wax la wareystaa waalidiinta la tashtaa way fiican tahay in waalidka la tashto walaalaha la tashto odayga ugu weyn la tashto xikmad ayuu hayaa laakiin xikmadaas tii ka weynado ka sii sareysay xikmadu haysto meesha ka imaatay waa aabaha naftana siiyay in abuuray kaas ayaa noo soo diray ruuxiisa quduuska anaga daa masiixina waxaan hogaaminay oo noo wada aabana oo noo hogaaminay waxa way ruuxul quduuska ruuxdii ilaahay hadii ku wada maxaa ka fiican ya oo xikmada dhana ku hayso marka iyada ina isku haleen oo ko marka ugu horeyso aan weydiisano weeyaan rabbi ya shani waa maasanta maadaama aan isweydiinay maxaa sameynaysaa markaadan aqoon waxaad samaysid waxa meesha taa loo horta marna waxa waaye qofka waxa laga xusuustina ka dhunto oo xusuusan waayo marka midda koowaad oo xusuusta marka hadii qofkii xusuustii ay ka maqnaato markaas iyada halkan waxa ku taalo ruuxa quduuska wuxuu in xusuusin doonaa waxyaabaha uu xasuusinayo marka ma aha waxyaabaha xunxun iyo qaladeeda anaga aan galnay laakiin wuxuu ku xusuusinayaa wixii markaas adiga u baahneed inaad samaysid wixii wanaagsanaa oo ugu talagash waa ilaahay wuxuu rabaa wanaag inaan noolaano ma aha inuu ku soo xasuusiyo maartay wax xun adiga oo ku dhibaaya hadhow waxa dhici karta qof inuu xumaan sameeyo ka soo qaashanay xumaantii uu sameeyay oo ka soo kabsaday hadii la soo xasuusiyo waxa dhaawac ba gaaray marka ilaahna ma rabo qofka inuu dhaawacmo ilaah kuma soo xasuusinayo xasuusna kuma keenayo waxyaabihii xumaa adiga aad samaysay wuu cafiyay waana la tuuray taas laakiin wuxuu ku xasuusinayaa wixii markaas adiga u baahneed oo aadan xusuusanin oo aad garan la adahay inuu ku xasuusiyo oo ku ron oo ku wanaagsan si noloshaada u fiicnaato marka gargaaraha wuxuu waxa uu nasiinayo waxay tahay ama ruuxda quduuska waxayna xasuusinaysaa markaan garanayn waxaan sameeyno ama markaan xusuusanin waxaan sameyn lahayn iidana xusuusinaysa iidana garansiinaysa waxana ka imaataa ilaah xaqiisa ka imaataa waa hadiyad ilaah uu nasiiyay sida kitaabka ku qoran marka rabbi ciise masiixa rumaystaan oo lidin baabtiiso oo toobad keentaan oo masiixa rumaystaan oo lidin baabtiiso waxaad helaysaan hadiyada ruuxa quduuska halkan lagu sheegay marka waxa leeyahay waa gargaare wuxuu ku iman doonaa magacayga rumayska ciise masiix la rumaystay ayuu ku imaadaa sida shaanil ay sheegtay qofka masiixiga ah oo rumaystay ereyga ilaah ayaa hadiyad ahaan loo siiyaa marka hadiyadaas marka hesho ayaa hadiyadaasi waxay ku noqonaysaa caawiye waxay ka caawinaysaa waxyaabaha aadan garanaynin inay ku barto waxyaabaha aadan xasuusin inay ku xusuusiso sida awadeed ayaa ilaah wuxuu leeyahay gargaaraha wuxuu idin xusuusin doonaa wax kasta oo idin ku iray yaa yirina waa ereyga ilaah wixiisa dhan ku xusuusinaya marka rabbiga wuxuu nasiiyay caawiye oo ereyga ilaah nagu caawinayo garashadiisa iyo fahamka ereyga ilaah nu fahamsiinayo iyo markaan garanin waxyaabaha aan sameyn inuu xusuusiyo wixii aan sameyn lahayn ee wanaagsan marka arin aad wanaagsan waay صح qofkii gargaaraha haysto wuxuu haysta gargaar wanaagsan waa hadiid wanaagsan oo aad u fiican shaanay maxaa ka wanaagsan cilmigii oo dhan meeshu yaal weyn aabihii nafta ayaa wax walba weydiinayna mogta marka aad ay u wanaagsan tahay inaan mar walba talada ugu horeysa aan la weeyalno ilaahay aan weydiino because isaga dambu naga leeyahay wuu ogyahay dhibaatadeen wuu ogyahay dhaawaceen wuu ogyahay tabardaradeen wuu ogyahay waxaan uu ogyahay isaga dhiigeena la fahayna dhuuxeena sameey meel ka wanaagsan oo loo ordi karana ma jirto markii sheekada ka xumaatana meesha aad u doonanaysid wax walba ka soo qaadanaysid waa rabbiga ilaaha qaadirka wax walba sameey mararka qaar ma aha kaliya okay mararka qaar wax baa la iloobi karaa uu ku xasuusinaa ruuxa qudus waxa garanayna way jirtaa wad cilmi u lahayn waa baranaysaa rabbiga ku baraayo laakiin mararka qaar waxa jirto waxa tiraay waxana sameeyay waxana sameeya maxaa ii fiican talaawadataa يا إله إنا أودي بتد ويا حتى مسيحيد وحي قبتها هذا ما أنت أنا دكان كتجين حتى وحنا سوق قدنا ربي يقول آدي وحو نكسن ساس على هذا هاي حتى رتينا قف جورستي وكل ربي يقف عن إيكان هبل بقى دوني كاوي كايو تلقى الشيء محارتا كيرتا هذه أنا محاسر ربتا أنا سميه دون وين وكالي ربي يسقى مع نضر ماشان كو مكينين وحو معلم كوي الروح قدوس كوسي ولقوتا براي وحول بالوش شيء وحال ربا وناجا وحول بعدين مهم كو أسجن مهم ويهين إلهي مهم ويهين مركا إنا وح كست حتى هذا وحير سوق ذا نسي هذا وح سمين نسي معه كلي تلوينك وين تلوينك يريربا wax kasta isaga labadaba u geey isagana uu sameeynaya waayo maxay tahay isaga dan bukaaliyo uu rabaa inuu kula taliyo markii aad wareertid wax ka xumaada isaga inuu caawimo waayo inuu ku caawiyo rabaa marka hadda shaani waxay ka sheekeynaysaa ana aan ka soo hadlo wax yar waxa ka hadlana waa ruux quduuska oo gargaarno ah oo ilaahay nagu caawiyo waxa laga yaabaa dadka qaar kood inay yiraahdaan ama ay aaminsan yihiin ruuxa quduuska waxa lagu sheegay wuxuu noqon doonaa nabi amal ama qof buu noqon doonaa ma aha waa beenina taas waa arin been ah روح قدوس كا وحواي وهديد إله ودتكيس أصيع وأنا إله روح قدوس كا يعني هذا وروحات قدوس إلههم بقدوس
ruuxadaasna cid kaleeto ay ka imaan karta malaha ilaahan waaye laftigiisa waana awoodiisa oo bini'aadanka hadiyad loogu dhigay si maaragtay nolosha uu ilaaha rabo ay ku noolaadaan dadka iyadoo maaragtay hoggaanka uusan hogaaminayn laakiin ruuxada laftigeeda ay ku hogaaminayso wadooyinka dhan oo xaqnimada marka waxaan u aqrinayaa Yuxana cutubkiisa 16 aayad 13 waxay leedahay laakiin markuu kan ruuxa runta ahu yimaado wuxuu idinku wadi doonaa runta oo dhan waayo isagu iskama hadli doono wuxuu ku hadli doonaa wuxuu maqlo wuxuu idin sheegi doonaa waxa imaanaya sida hadda shaani ay sheegtaba waxa waa qof ruuxa quduuska wuxuu ku sheegi doonaa waxyabaha wanaagsan ee imaanaya waxa la yiraahdaa waa hadiyad ilaa dadkiisa uu siiyo waxa la yiraahdaa dadkan waxay si sameeyaan prophecy ama wax si sheegid waxa imaanayo qof garan karta malaha ilaahayn laakiin kii ruuxada ilaah haysta ilaah ayuu la midoobay waa laga yaabaa inuu garto wayna dhici kartaa inuu garto waxyabaha imaanaya ilaah u muujinayo ruuxa quduuska waa ilaah ruuxa quduuskan u muujinayo qofkii soo u garto waa ilaah wuxuu yiri aniga ruuxada idin sii waa ruuxadayda ruuxadaydan waxay idin muujinaysaa waxyabahayga marka waxyabaha ilaah baa halkan lagu sheegaya wax wanaagsan ay noqonayaan ogaw marka ruuxan quduuska ah ma aha bini aadan ruuxa quduuska waa ilaah ruuxa quduuska waa ruuxad qof arkaana malaha marka ruuxadaas quduuska lagu leeyahay idinka idin jiri doontaa idinku jiri doontaa waligeedba bini aadan haduu aan lahaa shaani miyuu nugu jiri lahaa ma nugu jiri lahayn ha dad baa waxaas been yiraahdo waxa la dhahaa maxayd ruuxa quduuska u maleynaa nin inuu yahay nabiga ka dab yimid Ciise Masiix dhahay waxaas waa been sida sheena noo sheegay ma jirto waaye Ciise Masiix wuxuu yiri ruuxa quduuska ah dunida ma aragtaa la yiri mana qaadan karto idinku jira woon idinku jiri doona woon idina jiri doona waligeena la yiri ilaa ma aragta waqtiga ugu dambeeyo waa ruuxda Ilaahay marka nin aniga iguma dhex jiro waqti nabina iguma dhex jiro ma taqaana nabigana wuu dhintaa laakiin waxa lagu ruuxani ma dhimanayo idinku dhex jira ruuxda quduuska Ilaahay ka timid weyn idinku dunidana ma aragtaa leer waayo idinku jirta mana garanayso ruuxa igu jirta nafteeda arki karo ruuxdana lama arki karo moogtaa marka adiga kugu jirtaa weyn kula joogaysaa waligeeda leer macallin waxaynu ahaanaysaa waligeed ayaa waxna baraysa sida kitaabka quduuska ku qoran marka taasi waa ruuxa quduuska ah marka waxa waaye marka hadii aan garanayno waxaan sameeyno ama aan aqoon waxaan sameeyno ama ilaa waxaan sameyn lahayn macnaha talada maxay tahay shaani marka inaan ilaah u dhiibano wayaan ilaah isku dhiibno mar walba aan weydiisano oo maaragtay aan xitaa ka duceysano dhahan ilaahay iga caawi aan dhahno ducadaan duceysanayno anagu ilaah baryano oo weydiinayno waa wax walba moogtaa marka haddaan akhrino Rooma 8:26 waxaa ku qoran sidaa oo kale ruuxu wuxuu inaga caawiyaa itaal daradeena waayo garan mayno wax inoo eg oo aynu ku tukano laakiin ruuxa qudhiisa waa inoo duceeyaa isagoo ku tahaya aan sanqaraynin fiiri waxa laga wada xitaa mararka qaar marka aragtid inaad duceysid xitaa mararka qaar problem ka bato waxa laga yaabaa xitaa inaad garan weysid waxa ku duceysatid waxa ku hadashid iyo waxa sheegay wixii oo dhan ilaahay laftirkiisa ruuxdiisa uu nasiy ayaaba noo duceynaysa anaga wayna garanaya wuxuu noo baahan waxa u baahanay ilaahay wuu yaqaan waxa u baahanay aabeena quduuska nafta uu garanaya wax walba uu baahanay intaan weydiisan ka hor ayuu garanaya marka waxa la leeyahay ruuxa quduuska laftirkiisa ayaa idin duceynaa iyadoo aan la maqleen sanqad aan la maqleenin cid maaragta aadan maqleynin laakiin ilaah baa maxayta dartiisa iyo ruuxas quduuska ayaa ku duceena wax wanaagsan ku sheegay mar wuuna tababaraya marna wixii iman doono noo sheegaya marna xitaa markaan itaal daranaha uu noo duceynaa marka waa hadid aad wanaagsan waxa haysto kaliya qofka masiixi marka walaal hadaad masiixi ahayn walaal aqbal toobadu way ku dhowdahay qalbiga ka rumaysa afkan ka qiro maanta inuu yahay Ciise Masiix rabbigaaga iyo badbaadiyaaga ku soo bir maxay taxirta Ciise Masiix oo jannada loogu bishaareeyay si uu hesho ruuxa quduuska oo waligiis kula socdo oo uu heshid caawimo ku caawis mar walba waa sax waa maqashay walaalo ha iska beerdareynin ama iska lumin jaaniskan adiga haystid hadeertan waxa waaye nala soo xiriir hadeerta anaga waan ku sheegaynaa habkii maartay arabiga u rumaysan lahayd meeshan shaani waxaan ka arkaa fiiri haday waxaan soo weydiinay su'aasha laftigeeda meesha taagan waxay tahay maxaan sameeynaa markaan garanayno waxaan sameeynaa markaas waa itaal daran tahay moogta qofku waxa waaye way ka dhamaatay garan maayo markaan waxaan sameeyo wax laga yaabo go'aan aad rabtay inaad gaartid oo aad gaari karin marka ogaaw ruuxa quduuska ah oo gargaaraha ilaahay uu siiyay ah asaa ka caawinayo marka adiga itaal daran tahay asaa ku caawinayo marka adiga maarta aadan ogeyn waxa sameey lahayd asaa ku caawinayo marka adiga xusuusta ay ka dhunto ama waxba xusuusanaynin marka waa arin aad wanaagsan waa ilaahay adiga ku abuuray ayaa wuxuu ku leeyahay ana ku haayo furahaasna waxa waaye waa ruuxa quduuska waa aniga marka ii timaado itaal daradaada ana ka caawinayo aniga marka ii timaado xusuus daradaada ana ku xusuusinayo aniga marka ii timaado oo go'aan aad gaari karno oo weydiistid ana ku sheegayo go'aanka saxda ah gaari lahayd aniga ii kaalay ilaahayna anaga waxaan raanaa waa aabaheena jannada waa sida anaga carruur oo kale taa oo u baahanay inaan maartay wax
waxaan garanaynin aan weydiino aabaheen oo kale waa weydiinayna rabbigeena waxaan leenahay rabbiyo ma aqaan waxaan samayn lahaa ee fikir fiican isii rabbiyo ma aqaan meel aado iyo meesh igu aadi meesha aniga aadi lahaa rabbiyo ma garanayo waxaan wixii had shaani isu sheegayso dhan inta badan waxa waaye waxaan u geenaynaa rabbigaan u geenaynaa isagaan na caawina wuu hubantay waxaa la yidhi waqtiga itaal darada asaa ku caawinaya amiin marka dhibkiini iyo culaabtiina ii kaan sida yiri rabbi anaa idin nasnaaye marka waa ilaahaas wanaagsan oo aan idin wadno oo idin sheegayno haddii aadan aqoonin waxaa samayn lahayd ama aadan garanayn waxaa samaynaysid waxa waa u imaw ilaah rabbiga kugu hogaaminayo sida ugu wanaagsan ay ku jirto wanaagga uu ku jiro marka shaani inuu aqriyo yacquub cutub koowaad aayadda 5 waa aayad aad u wanaagsan waxaa ku qoran halkan maxay ahayd yacquubka koowaad yacquub 5 waxaa ku qoran laakiin haddii midkiin xikmad u baahan yahay ha ka baryo ilaah kan kulli si deeqsinimo ah u siiya isagoo aan canaanan oo waa la siin doonaaye bal fiir meeshan waxaa lagu leeyahay ilaahay weydiista ka barya haddii aadan xikmad lahayn haddii xikmadaada kugu filnayn haddaad talo u baahan tahay haddaa waano u baahan tahay haddaa waxbarasho u baahan tahay haddaa wax kasta u baahan tahay oo xikmad ku saabsan ilaah weydiisa isagana waxaa la yidhi wuxuu idin siin doonaa si deeqsinimo ah deeqsi mataqaanaa waa adoo 100 u baahnaa oo 200 lagu siiyo waa mogta waa 2 jibaar waa 10 jibaar waa 100 jibaar ilaahay wuxuu ku siinaa si deeqsinimo leh ayuu ku siinayaa lagu yiri markuu ku siiyo mana ku canaananayaa la yiri markuu dhahay adiga dabaalsanida ana wax weydiinaysaa maxay kaaga xumaatay talada maxaa wax qalad u gashay marka hore uma joogo laakiin wuxuu rabaa inuu ku siiyo oo wuxuu ku siinayaa si deeqsinimo leh ayuu ku siinayaa marka inaad deeqsinimo si rabbiga u soo doonano weeyaan oo ilaaha weydiisano isagoo noola diyaarsan inuu na siiyo xikmado dhan oo uu noo siiyo si deeqsinimo inuu koobkeena buux dhaafiyo inaa wax yar weydiisatee wax ka si weyn ku siiyo waxa laga yaabaa fiiri hadda kitaabka waxa ku qoran axliga horeeto maxay ahayd waxa ku qoran Suleymaan nin dhalinyaro isagoo nabi Suleymaan u taqaani wuxuu ahaa maxay ahayd waxa loo dhiibay wuxuu noqday boqorkii wuxuu noqday oo yahuuda dhan waa dad aad u badan milyanis ah aad u badan asigan dhalinyaro ah wiil yaro ah ilaahay xikmad weydiistay wuxuu yiri ilaahay waxaan ka baryayaa dadkan dhana ii dhiibtay ummadaana ii dhiibtay madax aan u ahay xikmada ma hay dhalinyaro ah iga caawiyo xikmad si maadaama uu ilaahay xikmad weydiistay ilaahay wuxuu ugu daray xikmado dhan xikmada adduunka ninka xikmad badan ma soo marin ala yiri xikmada ugu weyn horta isaga la siiyay iyo barako walba dhan waxa loogu daray barako dhan loogu daray waxa loogu daray maal oo dhan loogu daray waxa loogu daray boqortooyada dhan helo wax ka xoolo badnaa adduunka ma saarneen lagu wax ka xikmad badnaana ma jirin cimri dheerna waa la siiyay wax walba dhan loogu daray weydiisashada uu ilaahay uu weydiistay ayaa ilaahay wuxuu u bixinaa lagu leeyahay deeqsinimo walaal waxa weeyaan hadaa ilaahay 10 soo weydiisatay boqol ku siina 2 milyan ku siina 10 milyan ku siina nolol cimri dheer ku siina caafimaad ku siina laakiin waxa ugu horeeya waxa weey inaad marka ugu horeysa boqortooyada ilaahay aan doondoono oo isaga aan u iimaano waayo waxa ku qoran doondoona marka ugu horeysa boqortooyada ilaahay wax walba oo dhan waa idin kugu dari doona marka ilaahay isku dhiibno ilaahay adeecno oo ciise masiix aan aqbalno ilaahay wax walba u baahanaa xikmad ah si deeqsinimo wax walba noo siin doona isaga marka aan isku dhiibno marka ugu horeysa aamin waa tala wanaagsan rabbigaana mahad leh ilaahaas deeqsiga ah oo xikmadiisana siinaayo aan u nimaadno helna boqortooyadiisa marka hore asaga aan garano markaas kadib waxyaabaha kale aan u baahanahay dhan aan heleynaa marka haddii aadan garanaynin waxa samayn lahayd u kaala ilaah bari ilaah isaga ku hogaaminaya kuna sheegaya sabuur 27:8 markaad tiri wejigayga doondoona ilaahu wejigayga doondoon markaad tiri ayaa qalbigayga wuxuu kugu yiri rabbiyow wejigaaga waan doondoonayaa sida hadda dheheen u kaalay oo aamin rabbiga marka hadda ilaah uu ku leeyahay bari hadda ayad ku reeshaanay waxay dhahaysay id weydiista kuwa isagu weydiista xikmad leh habariyo ilaah wuxuu leeyahay aniga bari marka ilaah bari uu yiraahdo haye ilaahu waan ku baryayaa marka tiraahdo waa wejigiisa doonaysa macnaha waxa waa isaga rabtaa isaga rabtaa inuu wax ku siiyo isaga rabtaa inuu ku jawaabo isaga rabtaa inuu talo ku siiyo marka saa tiraahdo rabbiga wuxuu ku leeyahay waa ikana waana ku siinaya xikmadda u baahnayd waana ku siinaya aqliga iyo garashada u baahnayd ee kaalay ana ku siinaya wax walba waxaan dhiirigelinta meesha taala waxay tahay waxa laga yaabaa bini aadanka shaani in uu maartay qof walba qofka saaxiibkiisa ay tala weydiistaa qaarna haddii caruur yihiin aabahooda ama hooyadooda tala weydiistaan xitaa dad waaweyn waalidka ka waaweyn oo dad joogan laba gooraba xitaa ay marka weydiistaan si tala la orisiiso qof markuu garanay inuu macnaha wax loo sheego marka ilaahna wuxuu leeyahay meeshaan aniga
waxa idin abuuray idinka Asaga wuxuu aabaha iyo hooyada iyo adeerka iyo abtiga aysan aqoonin aysan fahmaynin ana aqaano way adig dhan oo socda ana ku sameeyay maadaama asaga uu ku sameeyay wuxuu ku leeyahay war ii kaalayaan aniga weydiisa wax u baahan tihiin marka hadaadan garanayno waxa sameeysid marka ugu horeyso ilaah weydiiso waxa laga yaabaa ilaah inuu markaas iyada ku yiraahdo ma su'aashan baa isoo weydiisay mis arinta u baahan tahay fikir fiican uu ku sii dhici karto waxa laga yaabaa qof in lagu diraa dhici karta xataa lagu yiraahdo qofkaas u tago qofkaas waxaas weydii qofkiina wax ku sheego hawo kala duwan ayuu ilaah oo macnaa xikmadiisa ay ku jirtaa hawo kala duwanna uu shaqeeyaa ilaah shaqadiisana ma waqti walba ay socotaa waayo dunidan dad badan jooga oo ilaah ma artay oo adeegsado oo ilaah wanaagiisa dunidan ku sameeyo waxa laga yaabaa kuwaas laftooda inuu ku diro oo ku yiraahdo kuwaas weydii su'aasha u baahan tahay ayagana ku sheegayaan asoo adeegsanayo xikmadiisa inuu usoo dhiibi kaas ama xikmadiisi si direct adiga kugu timaado ama direct adiga kugu imaato marka rabbiga wuxuu ku leeyahay weydiiso waa lagu siinayaa aayadaha soo socda aad u fiican marka oo ka hadli doona weydiista iyo maartay gargaraaca iyo doondoona waa ilaah wuxuu rabaa inuu ogaado waxaan inaad inay ka imaanayaan wuxuu rabaa in qalbigaaga oo dhan asaga ka doontid maskaxdaada dhan asaga ka raadisid fikirkaaga dhan asaga maartay ugu horeeyo markaas rabbigu wuxuu ku leeyahay aayadahan soo socda aqrinaay Lukas 12:9 ilaa 13 ya rabbigu wuxuu ku leeyahay 9 aan ka bilaabay waxaan idin ku leeyahay waa rabbiga laftigiisa la hadlayo weydiista waa la siin doonaa weydiista waa la siinayaa maxaa harsan marka maxaa doonaysa xikmad weydiiso waa lagu siinayaa maxaa doonaysa in lagu xusuusin weydiiso waa lagu xusuusin doonaa maxaa doonaysa in lagu qabto tala ka wareertay weydiiso talo ana talo ku siinaaya markaysa weydiista waa la siin doonaa doondoona waa heli doontaan garaaca waa la idinka furi doonaa waayo mid kasta oo weydiista waa la siiyaa waa sida ku qoran waa mid kasta ha isdhihin marka cali iyo cumar kaliya ayaa macnaha garaad u leh ama xaq u leh inay ilaah wax weydiiyaan ayuu ogolaada ilaah halkan wuxuu ku leeyahay kii walba wax weydiistaa waan siinaya waayo adiga sida kuwaas kale ay sheegaysid ada u malaynaysa inay tahay ama iyaga iska dhaadhiciyo adiga ka dhaadhiciyo inay ka fiican yihiin qof adiga ka fiican malaha ilaah wuxuu ku leeyahay adiga waxa tahay kan ugu fiican dunida aniga aan abuuray mid ilaah ka xigo malaha qof ilaah ka xigna malaha waa u samahay dadka dhan waa sameeyeen ilaah wax xaqiiqa marka mid walba baa la yiraahdaa oo weydiista waa la siinaya marka mid kasta wax dadka dhan waa mid liita malaha mid ka sareeya malaha mid oo hebel ah taala dhahay malaha mid reer hebel taala dhahay malaha kulli kii weydiista ilaah si deeqsinimo wax uu siinaya hadaan aan soo sheegnay sax kii doonaana waa helaya kii garaacaana waa laga furi doonaa marka shaaniyo 12 ka sii wadmo midkeeba midkiineeba aabe ah haddii tusaale weeyaan kee aabe ah la yiraahdo idinka kamid walaalaheen dhammaan iyo annagaba oo haddii wiilkiisu kibis weydiisto dhagax siiya ama hadduu kulan weydiisto abeeso ama kalluun weydiisto kalluunka meeshiisii abeeso siiya ama hadduu ukun weydiisto dabaqalooc siiya haddaba idinka oo shar leh haddaa garanaysaan inaa hadiyado wanaagsan caruurtiina siisaan intee ka badan ayaa aabihiina jannada ku jiraa ruuxa quduuska ah uu siinayaa kuwa isaga weydiista fiiri adiga bini aadana ilmahaaga wax yar haduu ku weydiisto horaa ka siinaysaa wax wanaagsan siina wax xun ma siinaysid alu yir ukunu ku weydiisto bahal ma siinaysid qalooc ma siinaysid wax kasta uu ku weydiisto wanaagsan siinaysaa annagiyo bini aadana oo waxba ahayn ayaa naqaan ilmaheen inaan wanaajino oo ehelkeena wanaajino oo dadkeena wanaajino saaxiibadeen wanaajino qof kasta wax wanaagna weydiisto wax wanaagsan siino tala fiican haduu wax u baahan yahay lacag siino haduu cunto u baahan yahay siino haduu fikrad u baahan fikrad siino ilaahay iyo ruuxa quduuska wuxuu ku siinaa intaas ka sii badan ayuu ku siinaya leer oo ka sii wanaagsan waayo ilaahay waa deeqsi uu ka sii deeqsan yahay dadka dhan sida uu maxayd kitaabka quduuska qoran oo aan aragnay ilaa nafteena dhan ayuu gacanta ku hay naftaan ku neefsanay xitaa isaga iska leh marka ilaahay aan u geeyno wax walba oo aamino oo isaga aan u dhiibno ya tusaale fiican way shaaniya hadda aayadan qaybii hore aan ka soo hadlaynay ruuxa quduuska wax walba bari doono oo hogaamin doono wax noo sheegay ba waxa lagu leeyahay hadda weydiisto ilaahay ruuxa quduuska ah wuxuu ku siin doonaa waa ruuxa quduuska ugu wanaagsan waayo hadii ugu wanaagsan la siiyo marka wax walba oo weydiisto ilaahay wuu ku siinaya walaal weydiiso wax ugu wanaagsan waxay tahay inaad weydiiso badbaado سأسأل وحرناتي مركب ورس وأنا مسيحة أقبل شدبة هذا مسيحة أقبل حاجة روح القدوس كهلسة روح القدوس كحرينها وروح لي إلهي وأنا عيسى مسيح أقبل شاء عيسى مسيح أقبل قلبي كرمي أفكن كقرمانتا وهلسة روح القدوس كواحد لنا وهلسة ولا قوة القلب كل لكن بقرتوي دوندونا وجنة هلا أو هلا مسيحة مركب ورس مركب بقرتوي دوندونتو هش مسيحة إلى كتاب يسوع كله يا سبور صدق إلا بسديد وأن كهنون دونا مركز وحن كبر دونا jidka aad ku socon lahayd wala fiirso oo waana kula talin doonaa iyadoo ay ishaydo kula jirto
كورن شاني aad ayaan u jeclahay tan because fear waa ballanqaad ilaahay wuxuu ballan qaadaa waay maaha maxay ahayd waa markaa heshid weeyaan laakiin waa inaa ogolaataa inaan ilaahay ku hogaamiyo haddaad diido oo shaydaanka tiraa hogaamida ilaahay maba aadan isku dhiibinba see maxay ahayd oo wax ku helisa waa maya laakiin markaa isaga isku dhiibto oo tiraa hogaamiye sidan ku ballan qaaday wuxuu ku dhaw ku hanuuninaa dhahay wuuna ku dhowraaya jidkaaga dhan kugu dhowraa isheedana waa kula soconaysaa ku yiri wuu kula socdaa meel walba oo maraysa cid lama tihid meel kasta oo maraysa hadaad socoto hadaad jiifto hadaad soo jeedo isagaa ku ilaalina isagaa kula socda isagaa ku hanuuninaya kow isaga hal isku dhiibo isaga hal isku haleeyo isaga hal weydiiyo talo kasta rabbiga ciise masiixa kabacdina wax walba oo dhan isagaa ku baraya isagana wuu kula socdaa mar walba kula jiraa amiin arin aad u fiican oo wanaagsan ما أيضا نقول دم بيتشانية أيضا نقول دم بس عشر كان قيبتي سأنكسو جوبينين وحيلاد هاي ما نأخرنا سا ها نأخرن كرها ما هي ذي سدح شن ويان ولا ليال وحقوق قرن قلبي جا دمانتي ربي جا كو آمن أو حجر الشدة هذا هسقوها لينن كدت كاجا أردن السجا كقرا أو السنة ودوين كاجو توسين دونا آمين taladii waa gabagabadii ugu horreysay oo maxaa samayn markaad waxaad samayn lahayd aadan garanaynin waxa ugu horreeya waxaa weeye qalbigaaga dhammaantii rabbiga ku aamin walaalayaal waa mahmaayadii 3 qalbigaaga dhammaantiida rabbiga ku aamin oo waxgarashadaada ha isku haleyn adiga xigmadaada PhD baa haystaa jaamacadan dhimay ha isku haleyn ilaaha kaasi xigmad badan hada xigmad ay istixtaa taa ilaaha ku si asagaana kaasi xigmad badan laba gooraba oo waxgarashadaada oo dhan ha isku haleynayna lagu yiri jidadkaaga oo dhan isaga ku qiro meel kasta isaga ku aamin oo ku qiro inaad masiixi tahay oo rabbiga isku haleynaysa taladaada isaga ay ka imaatay xagee ka keentay taladan fiican hadii lagu dhaho rabbiga ilaaha cirkii dhulka sameeyay aaminsanahay iyo ciise masiix ayaan ka keenaa dhehsa jidadkaaga oo dhan isaga ku qiro oo isna wadooyinkaaga toosin doona isaga ku hogaaminaya isaga ku tusi doona meesha mar lahayd iyo meesha ka bixi lahayd iyo waxa sameeyay iyo waxa markaad ogeyn waxa sameyn lahayd markaad garan waxa sameyn lahayd markaad garanaynin isaga ku hogaaminaya isaga ku tusa isaga ku sheegay isaga ku baray isaga ku siinayo talada ugu fiican maanta daartii inaad qof guursatid weydii rabbiga qofkaas inuu qof ku fiican yahay iyo qofka guursanayd hadaa u baahanta shaqo inaa heshid weydii rabbiga shaqada igu haboon teen rabaa inaa helo igu aadi dheh hadaarti ilmahaaga inaad tala fiican siisa oo la waanisa wax fiican u sheegtid ilaahu igu aadi wixii wanaagsan u sheegi lahaa ilaala ilmahayga dheh adna waxa u baahantaa oo dhan ilaah weydiisa laakiin marka ugu horeeyo boqortooyada ilaah la doono oo ah kow ina aqbashid rabbi ciise masiix waa number 1 kabacdina ina isaga isku haleysid isagana qalbigaaga dhan marka rabbiga ku aamintid qalbigaaga dhan waxa laga wadaa ilaahay u jecel xoogaaga maalkaaga naftaada aqligaaga ka jecel kabacdina isaga wadooyinkaaga oo toosina uu ballan qaaday saas waa marka waxa sameyn lahayd waa taas walaalayaal marka hadii aadan garanaynin waxa sameyn lahayd oo aadan aqoon waxa sameyn lahayd ilaah weydiiso ilaah saa ku hoggaamiyo wadada fiican ku hagaajinayo casharkan intaas aan ku soo gabagabeeyna maanta nagala soo xiriira jidkajannada.com وانا ما سنتين داوشو ونسان داوتان ربنا idinku hogaamiyo wadooyinkiisa toosan oo dhanba waanu duceynaa ducan soo gabagabeena walaalahay abu qudus rabbi wada mahad leh aabaheen wanaagsano aabaheen garashada dhan laho iyo xikmad laho rabbi waxaan ka baryayaa intana dhageystay hada qofkii xikmadaada u baahan xikmadaasi rabbi waxa ugu horeeya aad weydiisana waxay tidhi doona oo marka hore boqortooyada rabbiga markay helaan ka bacdi wax walba imaan rabbi ha gartaan boqortooyada hana ku aaminaan adiga aabaheen jannada oo aabaheen nabadaada wax ka shaqeynaysa qalbiyadeena ma kana ku dhoorto rabbiga ciise masiix intaas waxaan ku baryaa magaca sayidka بدبادينا عيسى مسيح آمين 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 نبذ كركين هات نبذ قلي ولا عليها نبذ ربي هذا نبذ باي